cabdikariin muuse qalbi dhagax oo ah sargaal sare oo ka tirsan ururka ONLF ayaa wareysi gaar ah u bixiyay waxa uu ku sheegay cidda qaadanaysa mas'uuliyadda go'aankii lagu gacan galiyay dawladda Itoobiya 3 sano ka hor. qalbi dhagax ayaa sheegay in ra'iisul wasaarihii hore ee dalka haatanna ah musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre in uusan mas'uul ka ahayn go'aankii lagu gacan galiyay Itoobiya, balse dhanka kale qalbi dhagax ayaa sheegay in mas'uuliyadda ugu weyn uu qaadanayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu yahay hogaamiyaha dalka, mas'uuliyiinta kalena ay isaga hoos yimaadaan. waxa iskala qaybta koobaad waxa mas'uuliyadda koobaad waxa iskala mas'uuliyadda koobaad dunuubtii dhacday aniga ha gaadho ama shacabka Soomaaliyeed ha gaadho ama dawlad goboleedyo ha gaadho. mas'uuliyadda koobaad waxa iskala madaxweynihii ummadan dooratay. dadka intiisa kale dekiirata madaxweynaha lagu soo magacaabayay, lagu keenay, lagu ogolaanay, baarlamaankana lagu geynay. marka mas'uuliyadda koobaad waxay fuulaysaa oo lagala xisaabtami oo iskale mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya yaa iskale. dhanka kale qalbi dhagax ayaa sheegay in ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ay wanaagsanaan lahayd inuu cadeeyo kaalintii uu ku lahaa dambigii isaga loo geystay, isagoona ka gaabsaday in si toos ah eedeyn ugu soo jeediyo Mr. Khayre. hadalka cabdikariin muuse qalbi dhagax ayaa imaanayo xilli ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo raaligelin ka bixiyay weerarkii 3 sano ka hor lagu qaaday xarunta xisbiga wadajir halkaas oo ay ku dhinteen qaar ka mid ah ilaalada hogaamiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur. qalbi dhagax ayaa soo dhaweeyay raaligelintaas oo Khayre siiyay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur, balse dhankiisa waxa uu sheegay in uusan wali la soo xiriirin. wareysigan uu cabdikariin qalbi dhagax la yeeshay wariye Ayaanle Xuseen Cabdi ayaa dhanka kale waxa uga hadlay xog ay ka heleen maalintii ay golaha wasiirada xukuumadii Khayre ee ururka ONLF ay ku darayeen liiska argagixisada. waxa uuna yiri markii baarlamaanka golaha wasiiradu maana ku fadhiisanayay xog yaraan helaynay baa jirtay. hadday run tahay iyo haddii kale waa inay cadeeyaan Khayre iyo ragiis. muddo markii golaha wasiiradu ay fadhiyeen qodobkan la isku mari waayay argagixiso cabdikariin sheekh muuse iyo ururkiisa aan ku shaabadayna argagixiso. muddo markii la ismari waayay Cali Khayrana wax badan meesha asaga shir gudoominaya fadhiyay, asaga ku xigeenkiisa Mahdi Guuleed yaa istaagay, wuxuu la soo baxay warqad jeebka kala soo baxay, wuxuu yeedhiyay qorshaha wareejintu noocay, wuxuuna yiri doodi kama furna doodi kama furna. ma ra'iisul wasaaraha isla ogaayeen, ma waxay isla ogaayeen madaxweynaha isla ogaayeen, kulay isla ogaayeen waxba meesha ka jira. marka haddii uu Cali Xasan Khayre isagu la soo bixi lahaa oo uu yeedhin lahaa, Mahdi Guuleedna eed kuma lahaadeen, cid kalena eed kuma lahaadeen, go'aanka iyo gacantaaga waa la wada yeelan lahaa. laakiin mas'uuliyadda iyo maamulka yaa lahaa. waxaan leeyahay marka waxa weeye aniga iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada foosha xun ee la geystay waa dambi culus oo la galay. mas'uuliyaddeeda koobaadna cid bay fuulaysaa, cid kasta iyada xaq u leh marka wixii kale ay ku leedahay. hadalkan ka soo yeeray cabdikariin muuse qalbi dhagax ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaanahan cadaadis lagu saarayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre in uu raaligelin ka bixiyo cadeeyana doorkii uu ku lahaa go'aankii qalbi dhagax lagu gacan galiyay dawladda Itoobiya. bishii Agoosto sanadkii 2017 ayay ahayd markii dawladda Soomaaliya iyo cabdikariin qalbi dhagax u gacan galisay Itoobiya, iyadoona arintaasi ay ka dhasheen dibadbaxyo xoogan oo ka dhacay gudaha dalka iyo dibadiisaba, kuwaas oo ay dadku ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan tallaabada ay dawladdu u hogaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Itoobiya ugu gacan galisay halgamaa Soomaaliyeed. balse ugu dambeyn qalbi dhagax waxa uu xorriyadiisa dib u helay bishii Juun sanadkii 2018 isagoona haatan ku tilmaamaya xarigaas in ay dawladda Soomaaliya aysan ka qaadin wax aanan khasaare ahayn.